qaraabada xidhiidhinteedu fadliga ay leedahay waxaynu ku doorannay duruufta adaga jirta wakhtigan daraaddeed iyo in laga warhayo oo aan la ilaawin guud ahaan sadaqada mar gaar aynu ka hadli laakiin dadka ehelka iyo aqaaribta ah waxa kale aynu ku doorannay wakhtiyada aakhiru zamaanka ama fitnadu ay jirto colaadaha cidda ay dhex marta ama shaydaanku uu isku diro waxaa ka mida dadka qaraabada ah waxaa saddexaad aynu ku doorannay waa mowduuc diin ah arrin ijtimaaci ahoo bulshada ah ma aha laakiin in arrintan la isu taagaa waa diin weeye maadaama qur-aan iyo xadiid ay ka warramayaan afar dhinac baynu ka eegi doonaa ka koowaad waxa weeye maxaa qaraabada looga jeedaa iyo ka labaad oo ah faa'iidooyinka ku jira xidhiidhinta iyo foolxumada ku jirta qodobka saddexaad oo ah foolxumada ku jirta goynta iyo arinta afraad oo ah habkee loo xidhiidhinaya haddaynu fasirno sharci ahaan waxa looga jeedo qaraabada imaamka luqawiga ah ee asfahaani la yidhaha ama sheekhaasaa tacriifinaya wuxuu leeyahy ustuciira min raxmi اlmarأati lilqaraaba likownihim khaarijiina min raxmin waaxid raximu lmar'a iyo waraxim min alqaraaba ayaa isku dhow rixim baynu inagu nidhaahnaa raximu lmar'a waa minka ama ilmogaleenka ruuxa dumarka ah ilmogaleenkeeda raxim baa la ydhaha dadkan qaraabada ana raxim baa la ydhaha marka sababta magacii isugu mid noqdee waxa weeye waxay noqdeen kuwo ka soo wada baxay ilmogaleen keliya ama raxim keliya ka soo wada baxeen sidaasaa markaa raxim loogu wada magacaabay waana qaraabada ka yimaada min naaxiyati اlabi aw ilum waa dadka xagga hooyo ka soo arooraya ama xagga aabbo macnaha hooyada ehelkeedii iyo aabbaha ehelkiisii labadaasay noqdeen qaraabadii waxaa labaad aynu u gudbi lahayd markaa xidhiidhinta qaraabada faa'iidada ku jirta faa'iidada koobaad waxa weeye waa min aliimaan haddaad adigoo ilaahay daraaddii ula jeeda xidhiidhiso iimaankaaga ayay qeyb ka tahay oo aada dhammaystirat xadiid saxiixulbukhaari ku sugan nebigu wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam waman kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri falyasil raximah qofka ilaahay iyo aakhiro rumaysanay qaraabadiisa ha xidhiidhiyo macnaha rumaynta ilaahay aada rumayseed aakhiro rumaysan tahay baa kuu xambaaraysa ama kuu sahlaysa inaad qaraabada xidhiidhiso diin ahaan baad u aaminsanta waa arrin gaaladu ay iskaga tegeen oo aanay aqoonba wax qaraabo la ydhaah faa'iidada labaada ku jirtaa waxa weeye silatu raxim sababun lilbarakati fi اrisqi wاlcumr inaad qaraabada xidhiidhsaa waxay sabab u tahay inuu ilaahay kuu barakeeyo oo uu kuu badiyo arsaaqadda iyo cimriga ama da-da ayaa ilaahay kugu barakeynaya dee qofku wixii soo gelayeyna way u barakoobeen wixii cimri ilaahay uu siiyeyna way u barakoobeen muxuu ka waayeyba xadiid anas ibnu maalik uu warinayo bukhaari ku sugan wuxuu nebigu ku uhi man axaba an yubsata lahu fii risqi wayunsa'a lahu fii cumri fii aharih falyasil raxima qofka jecel dadku way iska wada jecel yihiina in loo ballaariyo arsaaqadda cimrigana loo dheereeyo qaraabada ha xidhiidhiya buu nebigu sala allahu calayhi wasalam marka adigaaba gacanta ku haya in dakhligaaga kordhintiisa iyo da-daada inay kuu korodho labaduba faa'iidada saddexaada ku jirtaa waxa weeye silatu raximi waa silatun lilaah waa silatu raxim takuunu sababan lisilati illaahi lilcabd inaad qaraabada xidhiidhsaa waxay sabab kuugu noqonaysa inuu ilaahay adiga ku xidhiidhiyo inuu ilaahay ku xidhiidhiyana wax weyn weeye waa arrin weyn oo sahlanayn صaxiixu muslim waxaa ku sugan xadiiثuu nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam alraximu mutacaliqaة biاlcarsh
qaraabadii oo wax la taaban kara ilaahay uu ka dhigay baa waxay qabsatay ilaahay carshigiisa waxay leedahay ilaahay oo qofka ay xidhiidhiyana xidhiidhi qofka igooyana ilaahay oo gooy ilaahayna wuu ka aqbalay faa'iidada afraad ku jirta waxa weeye waa sababun lidukhuuli aljanna inaad jannada gasho waxaba sabab kuugu ah dadka qaraabadaada inaad xidhiidhiso ayaaba sababay kuugu tahay innaguna waxaynu raadinaynaa wax kasta oo jannada inoo sababi kara aad baynu ugu dadaalaynaa nebigu wuxuu xadiidkaa waxa warinaya ama nebiga ka soo maqlay aan idhaahdo cabdillaahi ibnu salaam caalimkii weynaa reer banu israa'iil ka mid ahaa markii dambena asxaabta ka mid ahaa marka la eego xukunkiisana waa saxiix ibnu maaja iyo axmedba way wariyeen wuxuu ihi markii u horreysay nebi maxamed uu tegey madiina waxaan ka mid ahaa dadkii ku soo uruuray markii la yidhi rasuul cusub baa yimi waxaan ka maqlay afar eray oo aada ii soo jiitay oo kutubi horena qorayeen maadaamuu caalim kitaabkii towraadna ahaa nebigu wuxuu leehay ayuha annaas afshu الsalaam waadcimu طacaam wasiluu اlarxaam wasalluu biاlleyli wاnnaasu niyaam tadkhulu اljannata bisalaam dadow buu nebigu leeyay dadow war salaanta dhexdiinna ku baahiya assalaamu calaykum assalaamu calaykum dad cuqdadaysanoo ciil iyo cadha ku noolaha noqonine dad caafimaad qabo iswada salaamaya nooda raashinkana masaakiinta siiya oo raashinku mid dhexdiinna balli oo badan ha noqdo qaraabadana xidhiidhiya habeenkiina tukada iyaday dadku hurdaan salaatuleylka tukada jannada idinku geli doontaa nabadgelyo iyadoon ilaahay cidhiidhiba idin marinin iyo cadaab ayay idin hore ka geli arrintaasi waa tii sabab igu noqotay buu leey inaan islaamo qalbigaygu qabtay nebigu marka afartaa arrimoodna waa faa'iidooyin ku jira khasaaraha ku jira in qaraabada la gooyo waxaa kow ka ah inuu qofkii ku noqonayo malcuun qof la nacdalayba dee nacdashuna wax sahlan maahae waa cadho alleh fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم قالوا إلهي الله اللي يوحي هدي آسيجي ستان وحد نبن قنيا إنا قويسان عدي إلهي وإذن فرأينا حريرسان أولا وقرابضوا أي كم التبيدين قوينيس قفك إلهي كسيجي سدا أهل كيسنا وكسيجي سنيا ذاتك السدا سميانا إلهي بأن عضلي بالرب سبحانه وتعالى إنه هذه يدقه هذا نو تري inkaar baa ku dhacday markaa waxay dad aan indhala lahayn dhegana lahayn nacdalana aayad kale ilaahay waxa ku yiri suuratu al-baqara ku sugan wama yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna 'ahda Allah min ba'di mithaqi ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون dad khasaaray oo faasiqiina ayuu ilaahay ku tilmaamay kuwa gooya qaraabada aayadaana suuratu al-baqara khasaaraha labaad ku jira qaraabo goynta waxa weeye haddaad ilaahay caasido diiday inaad qaraabada xiriirso khasaaraha kale ku jira waxa weeye waa yucajjal lihada ash-shakhsi al-uqubatu fi dunya intaanu aakhiraba gaarin uquba adduunyaa u soo degdegaysa waxaanay dadku la wada cabanayaan way iska wada uqubaysan yihiin marka iyagu godob kala wada galeen ayaa midiba qola inkaar ka kasbatay markaasaa aafaad badan ay garan waayeen baa dhex dhacay marka iyadoo dhibaatadii aakhiraba dambaysa tu kala soo degdegaysoo nafsi ah nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku xusay xadiid saxiixa min xadiidi abi bakra oo warinaya abi daawud iyo tirmidi ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ما تشير الذنب وقد أخصب بدنا وقد دق بدنا عقوبة دي سين ولهاي قفك أسو قدمه يضع تي آخرنا أي سوق يسو لبدا الذنبية كرد الرضا يقرأ بقويس نبدا anaa qofku hadduu yahay qof qaraabadana gooyo dadkana dulmiya
cadaabkii aakhiro sugaya mid adduunyada ilaahay u soo dedejinaya oo cuqubo adduunyaaba ku soo degdegaysa buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa nafsi baa ku dhacaya dhaqso ah taasina waa musiibo kale oo iyaduna ay leedahay qaraabogoysnimadu horeynu usoo xusnay xadiidkii sheegaya inuu ilaahayna qofkan goynayo goyntu ilaahay qofkan goynayo adduunyadii aakhiraba way noqonaysa markuu ilaahay abuuray khalqiga ayaa nebigu wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam raximkii baa istaagay raximkii qaraabadii baa istaagtay oo ilaahay uu ka dhigay wax la taaban karo markaasaa ilaahay waxa uu yidhi waxay tihi qaraabadii haadaa maqaamu lcaa'id minka min alqatiica ilaahay halkan waxaan u taaganahay inaan kaa magan galo in la igooyo markaa ilahay wuxu uhi miyaanad raalli ka ahayn qofka ku gooyo inaan anigu gooyo cidda ku xidhiidhisana anigu aan xidhiidhiyo maya intaasi way igu filan tahay bay ti markaa ilaahayna wuxuu ku yihi fadaalika lak haddaba ballantaasaad qabtaa anigu waxaan ballan qaadayaa qofka ku gooyo inaan gooyo marka adduunyadana ilaahay wuu goynayaa aakhirana wuu goynayaa wax walba jiq bay ku noqonayaan dhanku u dhaqaaqaabo way ku soo oodmaysaa waa arrin cajiiba wey waxa markaa isweydiin leh sideebaa loo xidhiidhinayaa dadkan qaraabada ah waxa lagu xidhiidhiya waxa kow ka ah hanuunka ilaahay u fiirsan nebiyada nebi waliba wuxuu isku dadaalayaa dadka ehelkiisa ah inuu u fidiyo hanuunka yaa qowmi baa ku badan qisooyinka nebiyada tolkayow xaasaskooda caruurtooda aabbahood nebi ibraahim iyo aabbihii nebi nuux iyo inankiisa xaasaskoodii adiga arkaya marka ambiyadu mid waliba qaraabadiisa ayuu hanuunka ula dadaalayaa sidaasuu ahaa nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam waa kii intuu quraysh iska dhex taagay jilib jilib ugu yeedhay inantiisa faadumo soo gaadhsiiyey markii dambe lahaa cadaab aakhiraan idinka dhigaya markaa wax loola gurmado hanuunkaa kow ka ah iyo hallowgoo lagala dadaalo intaa kadib wixii wax siina oo dadku bahashan adduunyada way iska jecel yihiin iyadana wixii loo heli karo hooday dadku jecel yihiin hadal keliya ma mare eh iyadana waa loogu dadaali wixii loo helayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku xusay xadiid saxiixa oo tirmidi uu warinayo min xadiidi salmaan ibni caamir waxaa la yidhahdaa xadiidka artaan sheegno wuxuu yahay xadiidku asadaqatu cala almiskiini sadaqa wa calaa di raximi hintaani sadaqatu wasila sadaqatun wasila sadaqada la siiyo qof miskiin ah oo aan ehelkaaga ahayn waa sadaqo sadaqadaasi samid ehelka ana silana way tahay qaraabo xidhiidhinna way tahay sadaqana way tahay markaa waa isa saar iyadu waa lamaanta alaqrabuuna awlaa bilmacruuf baa layaa samafalka waxa istaahiloo kusii habboon dadka ehelka ah sadaqo bixiyoo sokeeyo sii bay odhan jireen soomaaliduna weliba waxa aad bixinaysana waxaad isku daweynaysaa kuwooda buka inaad ku daweyso kuwa buka inaad ku daweyso oo taa macnaheedu markaa waxa weeyaan qaraabo xidhiidhintii waxay noqonaysaa qofka ku gooya ama ku neceb inaad wax siiso oo aanad la raadsanin uu kuwa isku wanaagsan tihiin ama kuu abaalguda imtixaanku wuxuu u badan yahay had iyo jeer dadka isku dhow ibliiskuna dadkaasuu ka dhex shaqaystaa oo isku daya inuu tartan siiyo xasad ku abuuro madaxa isugu dhufto oo isku diro taasuu ku dadaalaa marka adiguna inaanad madaxa la dhicin oo shaqadii ibliiska aanad fulin laakiin aad isbambaanisood ka baydhbaydha ku dadaal oo ka wax daweynaya aad noqoto marka waa habka wax loo xidhiidhinayaa waxa weeye qofka qaraabo xidhiidhinta laftigeedabaa waxay noqotay qofka ku jaraya ama ku gooyey inaad adugu xidhiidhiso rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo taa ka hadlaya wuxuu ihi afdalu sadaqati asadaqatu calaa diraxim alkaashix sadaqada waxa u wanaagsanta la siiyo qofka xigtadaada ah oo abunaxli ah naxli ku haya oo ciil iyo cadha ay hayso waad ku caafimaadinaysa isaga uu duudaya afku buuraya xaggaasuu sii jeesanaya saadadna u dhiibaysaa waad hambalyeynaysaa waad u dhiibaysaa waad hambalyeynaysaa hadduu miduu in miyir qabo wuu soo caafimaadi doonaa war adiga waxaan maxaa kuugu wacan qofkani waa ku wanaajinayaa buu odhan doonaa bal inuu in uun isa soo canaanto
markaasaa mar kale waxa uu lahaa laysa alwaasilu bilmukaafi qofka qaraabo xidhiidhiya lama yidhaahdo qofka ciddii xidhiidhisa un xidhiidhiya ciddii goysana gooya laakiin qofka had iyo jeer qaraabada xidhiidhiyaa waxa weeye ka xidhiidhiya cidda goysa kaasaa qaraabo xidhiidhintii macnaa laydu waataa waayo wax lagu xisaabtamaya bahasha nafta amarba wixii ku adag kolkaad ogolaysiiso ajri weyn baad leedahay nafta way ku adag tahay qof aad wanaajinayso oo ku xumaynaya oo aad wax siinayso oo ku xaasidaya inaad wax siisaa nafta way ku adagtay taa markaad ogolaysiisaa ajri weyn helaysa nin baa rasuulka u yimi sala allahu calayhi wasalam ninkaasi waxa uu leeyahy waxaan leeyahay rasuul allow qaraabo ayaan leeyahay anigu dadkaa qaraabada ah waan xidhiidhiyaa iyaguna way gooyaan waan wanaajiyaa way xumeeyaan waan u dulqaataa iyaguna way igu xadgudbaan bal ka war wuxuu hi arrintu haddii ay tahay sidaa aad sheegayso waxaad ka dhigan tahay adiga oo dambas kulul oo kulul afka ugu guraya macnaa way eedayaan waxa aad siinaysay adigu ku wadun ha ka daynin adaa ka macaashiya ilaahay xaggiisana dahiir baad ka haysataa maa dumta calaa daalik intaad samafalkaa iyo wanaaggaa wadood gacanta sare leedahay ilaahay xaggiisa dahiir baad ka helaysaa macnaa malaa'ig ku hiilisa adaa gacan saraynayo nabsimaalka helaya marka waxa weeye waxaa lagu abaabulayaa dadkii inaanay kala firdhanin oo aanay kala fakanin bal dad badan baa markaad waraysato waxay ku odhanayaan war marka kuwa aan ugu roonahay unbaaba iigu daranba kuwanaa u wanaagsanahay ayuunbaaba iraad gurayo ee xamanayo ee xadaafirayo ee xumaynaya yeelkood marka arrimahaasaynu xusilayn 10 qodob weeye aynu kaga hadalnay qaraabo xidhiidhintu nooca ay tahay faa'iidada laga helayo goynteedu dhibaatada ay leedahay iyo qaraabada kuwa ay yihiin marka casrigan aynu joogna fitnadu ay badan tahayna waa inaad isku daydo dawadan sharciga inaad qaadato dadka duruufaysanna iyadoo ummadda oo dhan wax la wada siinaya wixii aad u heli karto haddana kuwan inaad ka sii bilowdo dhinac kale laga eegayaa waxa weeye bulshadu dee sibay isugu xidhxidhan yihiin kuwa ku-xiga haddaad nagaga filaato dee kaalin baabaad naga buuxis laakiin kuwii ku-xigay haddaad nagu soo dayso dee kaalin buuxis ma ihid dhinac kale kolka laga eego waxaynu arkaynaa sharcigeenu iyo ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay addoomahan abuuray siduu dadka ugu naxariis badan yihin ciddii adiga aada u naxariisanaysay isxigteen baaba waxaanoo dardaarani uu ku soo arooray oo lagu yihi kuwaa isxigteen aad u naxariisanayso ayaa lagu yihi haddana usii naxariiso marka ilaahay baa cid walba kaaga naxariis badan iyo sharciga uu inoo soo dejiyey intaasaynu ku soo gaabin lahayn kelmaddeennan kooban allah inagu anfaco cibaadadana allah inaga aqbalo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu